socotaan bariiska la yiraahdo al-urzu al-balastiki waa la socotaan wadanka soo gelin laakiin Afrika hadda soo maray Nigeria lagu qabtay ursiga balastiga waxa weeye waa bariis laga sameeyay balastig laga sameeyay waxyaalo bacaha iyo qashinka iyo qoryo iyo waxyaalo noocaas inta la isku daraa la shiiday markaas habkii bariiska kama taqaanid wagi qofku waa cunahay markuu cuno يعني hoos ma degi karo sidii caag la shiilay oo kale ayuu calaasha hal meel ku fariisanaa asagoo dhagax markuu qofku cuno asagoo dhagax la yaab billah oo meel fariisana ursil balastik adduunka ka socda waa ummadu marka qof walba qofka kale uu doonayo inuu dhiigiisa cado oo nolosha uu ku dilo qof walba uu rabo laakiin arinkaas qofka dadka gacmaha kula jira waxay kaydaysanayaan waa sun'un nabigeena sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi wuxuu yiri allahumma man waliya xadiiskii imaam muslim saxiixa ku wari allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihim ilahu ummadayda qofkii meel yar oo mas'uula ka qabta oo dhiba ilahu dhibu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam إله أمديدا قفكي وحير مسؤولية وقبتا أو أمديدا أدمريا ونحريستا إله الدنيا آخر ونحريس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وأمة محفوفة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمة أي واردين يسو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقفكي أدمريا ونحريس وحائل علينا يا هريرين يا هبارك النبي قفكي أمدا لبا ولبا سيو خيانة خيانة دي مركب وحوي دنع والباء ayaa dulmigii ku faafay umuur siyaasi u galay arrimihii siyaasaddu galay arrimihii tacliintu galay arrimihii beecu galay kuwii ijtimaaciga bulshadu galay meel uusan dulmigii iyo khiyaanadii aysan ku jirin mar waa wax kugu maqan dulmiga aad samaynayso qofka daalimka meel uun ayuu kaaga maqan yahay caafimaadkaaga ha noqdo caruurtaada ha noqdo cibaadadaada ha noqdo meel uun buu ku maqan yahay إمام الذهبي رحمه الله تعالى